Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal, waa mar kale iyo muuqaal kale. Muuqaalkan maanta waxaan ku baran doonaa sida u qurxin lahayd sawiraanta. Tusaale ahaan sawirkan oo kale, markii hore sida tan ayuu ahaa, kadib markaan kalarka saaray sida tan ayuu noqday. Haddaba sidaad u qurxin lahayd idin kula wadaagayaa. Haddii ay muuqaalo hore aan kasoo sameeyay way jiraan oo sida akoon looga samaystay sida loo qurxiyaa. Haddii aad markaa daawanin waxaad ka daawan kartaa falaadha xan kore kaaga soo baxaysa ama description-ka ayaad ka daawan kartaa. haddaba hadday tahay markii ugu horreysay aad soo booqato channel-kan fadlan subscribe saar notification-kana furo si muuqaal walba cusub kugu soo dhaco sidoo kale muuqaalkan like saar si uu gaaro dad fara badan aad iyo aad baa mahadsan tahay kusoo dhawo muuqaalka oo faahfaahsan. haddii aan muuqaalkan hore galo waxaad ku dhufanaysaa balaaskan yar ee sawiraanta laga soo gashado, kadib sawirka aad rabto ayaad raadsanaysaa. kadib aniga sawirkan ayaan soo gelinayaa, kadibna add ayaad dhahaysaa. kadib qaybta kore all photos ku qoranta ayuu kuusoo gelayaa, waa taabanaysaa. kadib sawirka waa kan waa taabanaysaa. kadib markuu sidan kuu keeno qaybta naftiinka ayaad tegaysaa. kadibna qaybta koowaad ilaa meelaha 10 ayaad ka dhigaysaa. qaybta labaadna waxaad ka dhigaysaa 24. qaybta labaadna waxaad ka dhigaysaa 50. qaybta saddexaadna waxaad ka dhigaysaa 100. qaybta kale ku xigta waxaad ka dhigaysaa 10. qaybta kale kusii xigtay oo hooseysa marka iyadana waxaad ka dhigaysaa 54. kadib markaad sidaa ugu dhamaystirto waxaad tegaysaa qaybtan ayaad tegaysaa iyadana. kadib waxaad ka dhigaysaa qaybtan koobaad 8 ayaad ka dhigaysaa. markaad sidaa 8 uga dhigto qaybta labaadna 2 ayaad ka dhigaysaa. qaybta saddexaadna waxaad ka dhigaysaa 78. qaybta oo hooseysana waxaad ka dhigaysaa 32. kadib markaad sidaa u dhamayso waad kasoo baxaysaa. kadibna waxaad ku dhufanaysaa qaybta kore ay ku qoran tahay mic. kadib colorka koowaad waxaad ka dhigaysaa 44. ka hooseeyana waxaad ka dhigaysaa 84. qaybta oo hooseysana waxaad ka dhigaysaa 8. colorka labaad ayaad gudbaysaa. qaybta koowaad waxaad ka dhigaysaa 20. qaybta labaadna waxaad ka dhigaysaa 8. kalarka saddexaad ayaad u gudbaysaa. qaybta koowaad waxaad ka dhigaysaa 100. qaybta labaad ee ku xigtana waxaad ka dhigaysaa 48. qaybta saddexaad ee ku xigta 18. kalarka afraad ayaad u gudbaysaa. kadibna qaybta koowaad waxaad ka dhigaysaa 100. qaybta labaadna 100 ayaad ka dhigaysaa. qaybta saddexaadna waxaad ka dhigaysaa 58. colorka shanaad ayaad u gudbaysaa. kadib qaybta koowaad waxaad ka dhigaysaa 34. qaybta labaadna waxaad ka dhigaysaa 8. qaybta oo hooseysa ee saddexaadna waxaad ka dhigaysaa 88. kalarka xiga ayaad u gudbaysaa. kadib qaybta koowaad waxaad ka dhigaysaa 100. qaybta labaad
oo ku xigta isagana waxaad ka dhigaysaa 48. qaybta saddexaadna waxaad ka dhigaysaa 60 buura. kalarka xiga ayaad u gudbaysaa, kadib qaybta koowaad waxaad ka dhigaysaa 30. qaybta kale ku xigtana waxaad ka dhigaysaa 46. qaybta saddexaad oo hooseysa waxaad ka dhigaysaa 12. kalarka u dambeeya ayaad tegaysaa markaa, kadib qaybta koowaad waxaad ka dhigaysaa 100. qaybta kale ku xigtana waxaad ka dhigaysaa 100. kadib dan ayaad dhahaysaa oo waad ka soo baxaysaa. kadib waxaad tegaysaa qaybtaas ayaad tegaysaa afargeeska. kadib qaybta labaad ayaa waxaad ka dhigaysaa 32. qaybta kale ku xigtana waxaad ka dhigaysaa 10. haddana qaybtaas sambuuska ayaad tegaysaa saddex geeska. kadib qaybta koowaad waxaad ka dhigaysaa 8. hoos ayaad u yara degaysaa, qaybtan color ku qoran tahay ayaad iyadana waxaad ka dhigaysaa 20. qaybtan kale oo hooseysa iyadana waxaad ka dhigaysaa 25. kadibna kadib markaasaa dhahdo dan ayaad dhahaysaa, kadibna sawirka ayaad fiirinaysaa. sawirka marka hore sida tan ayuu ahaa, kadib markaan kalarka saarnayna sida tan ayuu noqday. haddaba waxaad ujeedaa inaan aada u qurxinay. sawiro badan oo sida tan aad ka dhigan kartana way jirtaa. haddaad rabto inaad kalarka mar labaad aada sameynin oo dhib kugu tahay, kadib saddexdaa dhibcood aad ku dhufanaysaa. kadib waxaad ku dhufanaysaa koobi qaybta ay ku qoran tahay, waad koobi garaysanaysaa. kadibna saxda ayaad saaraysaa. kadib waad ka soo baxaysaa oo sawirka aad rabto ayaad soo gashanaysaa. kadib sawirkii markaad saas ugu soo gashatay aad soo dhaasato wuu kuu soo gelayaa. kadibna sawirka korkiisa ayaad taabanaysaa. kadib markuu sitan kuu soo galo saddexdaa dhibcood ku dhufanaysaa. kadibna qaybtii aan kolka hore copy nidhamaad basti iga dhahaysaa. haddaba waxaad ujeedaa automatic ahaan inuu fuulay sawirkii, colorkii inuu fuulay. haddaba sida taa ayaad u saaran kartaa sawiradaada. sawirka u seefato waxaad ku dhufanaysaa qaybta sheerta, kadibna waxaad dhahaysaa save to device ayaad dhahaysaa. kadib galerida ayuu ku gelayaa sida taa sawirkaaga ku haysataa. haddaba saaxiibayaal sida taa ayaa loo sameeyaa sawirada oo loo qurxiyaa. fadlan hadday tahay markii hore soo booqata channelkan, subscribe saar, notification-kana furo si muuqaal walba cusub kugu soo dhaco. sidoo kale muuqaalkan like saar suu gaara dad fara badan. intaan muuqaalkan iyo muuqaal ku xigan kaa kulmayna waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.